Assalaamu calaykum dhammaantiin saaxiibada sharafta badan. Muuqaalka filimku wuxuu ku bilaabmayaa Mexico. Ilmo la yiraahdo Miguel waxaa karisay hooyadii Rosa maadaama uu aabihiis dhintay markuu dhashay. Maalin maalmaha ka mid ah Rosa waxay wax ku karinaysaa guriga markuu telefoon ka soo wacay in adeerkeed Carlos. Wuxuu u sheegay Rosa in koox burcad ahi ay raadinayaan isaga kadib markuu ka xaday lacago fara badan. Markaa wuxuu ka codsaday inay soo qaado lacagta uu soo xaday oo ay Mexico uga baxdo sida ugu dhaqsaha badan. Carlos ayaa aakhirkii gacanta u galay nimankii burcad ahaa oo uu hogaaminayo Mauricio. Markuu Mauricio eego telefoonkiisa wuxuu ogaaday in Carlos uu hadda la xiriiray Rosa. Isla markiiba wuxuu damcay inuu raadiyo iyada isagoo ogaaday in Carlos uu iyada siiyay lacagta burcadda. Carlos waxaa dilay nimanka Mauricio. Askariga badda Jim Hanson wuxuu ku guda jiraa waajibaadkiisa soo uga difaaco soo galootiga sharci darrada ah soodinta Mareykanka iyo Mexico, gaar ahaan aaga Arizona. Jim wuxuu arkay qaar ka mid ah dadka soo galootiga ah oo si qarsoodi ah u doonayay inay uga gudbaan xadka isagoo daawanaya xoolihiisa. Isla markiiba wuxuu ku wargelinayaa saraakiisha kale wixii uu arkay ka hor intuusan raacin muhaajiriinta. Muddo kadib wuxuu ka soo duldhacay nin Mexican ah oo dhaawac ka soo gaaray lugta. Ninku saaxiibadiis way ka tageen waayo dhaawacii lugta ka soo gaaray ayaa ka dhigay inuu socon kari waayo. Jim ayaa mar kale uga warbixiyay booliis kale raadiyaha oo uu ku soo laabtay guriga. Markuu sarkaal bangi yimaado guriga Jim isagoo damacsan inuu deynta qaado, Jim wuxuu ogaaday in lagu leeyahay deyn badan maadaama uu ku bixiyay qarashka qaliinka kansarka naagtiisa. Waxaa ka sii daran haddii uu bixin waayo biilka, gurigiisa waa laga wareegi doonaa. Waxa lacag ah ma haysto, marka waa inuu ka baryaa deyn qaadaha dhowr toddobaad oo kale. Wuxuu galabtii u tegayaa nin xoolo dhaqato ah suu uga iibiyo qaar ka mid ah lo'diisa. Si kastaba ha ahaatee ninka xoolo dhaqatada ah ayaa u soo bandhigay qiimo jaban. Jim wuu wareeray sababtoo ah inkastoo uu iibiyey lo'diisa oo dhan, haddana wuxuu la'yahay dhaqaalihii uu ku bixin lahaa deymaha. Baarka ayuu tegayaa fiidkiisuu u nasto in muddo ah. Halkaa wuxuu kula kulmay gabadh uu dhalay sarkaal ka tirsan booliiska xuduudka, Sarah. Wuxuu u sheegayaa dhibaatooyinkiisa deynta taasoo keeni karta inuu waayo gurigiisa. Aad buu khamriga u cabayaa ilaa ay Sarah guriga u kaxaysay. Rosa iyo Miguel ayaa waxaa baacsanaya burcadda maalinta xigta meel u dhow xadka Mexico iyo Mareykanka. Waxay isku dayayaan inay Ameerika ka soo galaan xayndaabka birta markay la kulmeen Jim oo meesha ag marayay. Waxyar kadib Mauricio iyo shaqaalihiisa ayaa yimid wuxuuna ka dalbaday Jim inuu soo wareejiyo Rosa iyo Miguel. Jim wuxuu ugu dambeyntii go'aansaday inuu difaaco iyaga isagoo ogaaday in noloshoodu ay khatar ku jirto. Tani waxay si cad uga careysiisay Mauricio oo israsaaseyn ayaa ka dhex dhacday Jim iyo burcadda. Jim wuxuu maareynayaa inuu toogto mid ka mid ah wiilasha Mauricio ka hor intuusan kula cararin baabuurka Rosa iyo Miguel. Laakiin Mauricio wuu diiday inay cararaan. Wuxuu isku dayayaa inuu soo qabto. Si kastaba ha ahaatee Jim wuu awooday inuu baxsado. Mauricio aad buu uga xanaaqay markuu ogaaday in walaalkiis oo Jim toogtay uu dhintay. Markaas ayuu Mauricio wuxuu qaaday cadaawad ka dhan ah Jim Hanson. Jim dhanka kale wuxuu ogaaday inay Rosa xabad ku dhacday. Nolosheeda khatar bay ku jirtaa waxayna Jim u dhiibtay boorso iyo ciwaanka qoyskeeda ee Chicago iyadoo ka baryaysa inuu Miguel u geeyo ayeydii. Markay intaa u sheegtay ayay dhimanaysaa. Markay shaqaalaha caafimaadka iyo booliiska ay yimaadaan goobta dembiga fiidkii, Sarah waxay ku wargelisay Jim in Miguel la geyn doono saldhigga booliiska oo loo dhiibi doono qoyskiisa. Maalintii xigtay Jim wuxuu joogaa xuduudka isaga iyo eygiisa Jackson markuu arkay baabuur ay leeyihiin koox burcad ah oo ku sugan goobta baabuurta la dhigto, laakiin uma muuqato inuu ka xanaaqay. Wuxuu furay boorsadii ay Rosa siisay wuxuuna ka dhex helay lacag aad u badan. Marka la eego xaaladiisa dhaqaale, Jim wuxuu ku boodayaa baabuurkiisa oo uu kaxaynayaa bangiga suu isaga bixiyo dhammaan biilasha. Laakiin markuu arkay dhiigga Rosa ee boorsada dusheeda, qalbigiisa wuxuu bilaabay inuu jilco. Wuxuu xusuusanayaa inay u xilsaartay hawsha ilaalinta Miguel. Natiijo ahaan wuxuu ku laabtay xafiiska xuduudka wuxuuna ogaaday in Miguel lagu celin doono qoyskiisa kuwaasoo dibadda ku sugaya. Laakiin si dhaqso ah ayuu u ogaaday in qoyska loo dhiibi rabo uu yahay Mauricio. Markaas intuu xoghayaha xafiiska uu telefoon ku hadlayo, Jim wuxuu aadayaa Miguel si qarsoodi ah ayuuna u kaxaysanayaa. Dhanka kale Mauricio wuxuu taagan yahay goobta baabuurta la dhigto isagoo daawanaya Jim iyo Miguel oo tegaya. Wuxuu go'aansaday inuu ku duulo dhulka Mareykanka suu u laayo oo uu u soo ceshado lacagtiisa. Jim wuxuu aadayaa guriga daqiiqado kadib suu u soo qaato qaar ka mid ah dharkiisa iyo hubkiisa. Kadib wuxuu si toos ah u aadayaa Chicago isagoo uu la socdo Miguel. Mauricio iyo asxaabtiisa waxay bilaabeen inay ka gudbaan xadka Mareykanka. Saraakiisha ilaalada xuduudaha ayaa u muuqda kuwo si wanaagsan u yaqaana gaboodfalada ay geystaan kooxaha daroogada ka ganacsada ee Mexico. Isagoo cabsanaya ayuu Mauricio iyo kooxdiisa u ogolaaday inay si fudud u galaan. Mauricio ayaa markaas si toos ah u aadaya goobta Jim. Wuxuu soo galay guriga oo uu ogaaday dukumentiyada kaarka lacagta ee Jim iyo sidoo kale biladaha abaalmarinta badda, taas oo muujinaysa in Jim uusan ahayn qof caadi ah. Wuxuu qaatay bilada oo wuxuu dab qabadsiinayaa gurigii Jim.
suu u helo tafaasiisha kaarka lacagta, Mauricio wuxuu qorsheynayaa inuu la kulmo xubin ka mid ah burcadda Mareykanka. Meel kale, Jim wuxuu istaagay kaalin shidaal suu u buuxiyo gaariga oo uu iibsado khariidad si ay uga caawiso inuu u socdaalo Chicago. Nasiib daro ma uusan ogeyn in Mauricio uu ku raad joogay isagoo adeegsanaya kaarka lacagta ee uu ku isticmaalay kaalinta shidaalka. Isaga iyo kooxdiisu waxay ku luminayaan waqti yar inay si toos ah u aadaan kaalinta shidaalka. Markay yimaadeen, Mauricio ayaa weydiiyey kaaliyaha dukaanka halka uu Jim u dhaqaaqay. Si kastaba ha ahaatee, kaaliyaha dukaanku ma oga, oo sidoo kale waxay ka soo horjeedaa inay dib u eegto kaamaradaha. Isagoo ka xanaaqsan dhaqankeeda, Mauricio wuu dilay. Marka la fiiriyo muuqaalka kaamarada, Jim wuxuu u socdaalay bari. Dhanka kale, Jim waxaa joojiyey booliiska, kaasoo ka dalbaday inuu tusiyo shatiga darawalnimada iyo kaarka aqoonsiga. Runta ayuu daaha ka qaaday, bastoolada iyo shahaadada lahaanshaha ayuu sitaa. Laakiin booliisku wuxuu rabaa inuu qaato bastoolada oo uu sidoo kale doonayaa inuu la hadlo Miguel. Jim si cagajiid ah ayuu bilayskii ugu raacay gaariga, laakiin waqti dheer kuma qaadanin markuu Jim ogaaday in booliisku uu telefoon kula hadlayo qof kale. Waxba kuma dhihin Miguel. Wuxuu arkay booliiska oo ka shakiyey, shakigiisuna wuu dhaboobay. Burcadda waxay shaqaalaysiisay booliiska say u helaan Miguel. Jim kadib wuxuu weeraray sarkaalka isagoon ka labalabayn, wuuna suuxiyey. Wuxuu ku amray Miguel inuu cararo ka hor intaysan burcaddu iman. Muddo aan dheereen kadib, Mauricio ayaa yimid oo wuxuu weydiiyey askariga halka ay ku sugan yihiin Jim iyo Miguel. Laakiin booliisku ma oga dhanka ay ka baxeen maadaama ay tageen isagoo miyir daboolan. Mauricio markuu taas maqlay wuu carooday oo askarigii toogtay. Nasiib daro, Mauricio wuxuu helay khariidada Jim. Jim wuxuu go'aansaday inuu aado dukaanka qoriga lagu iibiyo, waxaana uu gadanayaa qoriga toogashada ah, hubka uu jecel yahay. Habeenkii waxay ku hoyanayaan hodheel oo isla markiiba way seexdeen. Jim wuxuu soo toosayaa abaare 2 habeennimo, wuxuuna go'aansaday inuu baxo suu ula hoydo Jackson. Wuxuu ka soo baxayaa qolka markuu arkay Mauricio iyo kooxdiisa oo ku jira hoolka hoteelka. Isla markiiba wuxuu toosiyey Miguel oo wuxuu la xiriiray booliiska suu ugu sheego inay burcad soo gashay hoteelka. Kadib wuxuu Miguel ula cararay duurka. Waxyar kadib, Mauricio iyo shaqaalihiisa waxay galeen qolka Jim oo ay ogaadeen inuu maqan yahay. Waxay baareen hoteelka, kadib Mauricio ayaa aad u xanaaqay oo ku hanjabay inuu dili doono Jim. Kadib markuu baxay, Jim wuxuu ku amray Miguel inuu fuulo baabuurka intuu ku laabanayo hoteelka isagoo raadinaya Jackson. Laakiin xaaladdu way xumaatay. Jim waxa uu ogaaday in Jackson uu ku qaylinayo Mauricio. Eygana waxaa lagu toogtay indhihiisa hortooda, taasoo qalbigiisa jebisay. Waxay ku aaseen Jackson guriga maalinta xigta oo aadeen kaniisad, halkaasoo Miguel uu doonayo inuu ugu duceeyo hooyadiis. Ducada kadib, wadaadku wuxuu u soo dhawaaday Jim oo weydiiyey inuu Miguel awoowo u yahay iyo in kale. Jim si run ah ayuu ugu jawaabay isagoo sheegay in lagu aaminay inuu ilaaliyo oo aanu haba yaraatee wax xiriir ah la lahayn. Kadib wuxuu la xiriirayaa Sarah, taasoo ka dalbanaysa inuu Miguel ku celiyo booliiska. Si kastaba ha ahaatee, wuu diiday sababtoo ah wuxuu go'aansaday inuu Miguel u raaco qoyskiisa Chicago. Waxay bilaabeen safarkooda, halka burcaddu ay garan laayihiin waxa ay sameeyaan say u qabtaan Jim. Laakiin waqtigaas, Mauricio iyo kooxdiisii ayaa tilmaamo ka helaya khariidada Jim. Miguel wuxuu ku calaamadiyey magaalada Chicago calaamad casaan ah oo ku taala khariidada. Markuu Mauricio ogaado halka uu Jim u socdo, wuxuu isla markiiba u soo diray burcadda Chicago si uu ugu qabto jidka. Jim iyo Miguel oo la daalan socodkooda ayaa ku nasanaya buundada hoosteeda iyagoo shidanaya dab ay isku diiriyaan. Suu dabku u sii shidmo, waxay gubayaan lacagta burcadda. Waxay bilaabeen socodkooda oo ay soo gaareen agagaarka Chicago maalinta xigta. Si kastaba ha ahaatee, intuu goynayo wadada weyn, Jim wuxuu ku arkayaa koox burcad ah oo ku sugan buundada korkeeda. Wuxuu dareemayaa in la go'doomiyey, wuxuuna doortay inuu sii wato safarkiisa dhinaca miyiga si uu uga fogaado khatarta. Mauricio iyo raggiisa dhanka kale si sax ah ayay u garanayaan halka uu Jim joogo. Si degdeg ah ayay uga daba yimaadeen isgoyska wadooyinka. Nasiib wanaag, Jim wuxuu awooday inuu mar kale dhinac u leexdo oo uu baabuurka Mauricio ku wado kaynta. Jim si degdeg ah ayuu u xawaareeyey isagoo ku qasbaya Mauricio iyo raggiisa inay soo kala wareegaan oo ay raacdeeyaan. Wuxuu doortay inuu fuulo buundada korkeeda si uu u hakayo baabuurka burcadda oo uu toogto. Shishiyahan hore wuxuu ku guuleystay inuu toogto darawalka Mauricio, taasoo keentay in baabuurkiisii uu ku rugmado dhinaca wadada. Mauricio iyo labada xubnood ee soo haray ayaa kadibna ka soo baxaya gaariga. Jim wuxuu Miguel ula ordayaa meel nabdoon, waxayna magan galeen meel calafka xoolaha lagu kaydiyo ee u dhow. Jim ayaa qorigiisii ku aadiyey qofka weerarka soo qaaday dhanka daaqada gadaasheeda, wuxuuna si sax ah u maareeyey inuu dilo mid ka mid ah wiilashii Mauricio. Hadda waxaa haray 2 keliya. Jim wuxuu ku amray Miguel inuu qoriga ka soo rido bakhaarka gudihiisa si uu u mashquuliyo. Dabadeed wuxuu u soconayaa dhinaca bakhaarka si uu u toogto. Qorshuhu wuu shaqeeyey oo keliya Mauricio ayaa soo haray, kaasoo maareynaya inuu soo galo bakhaarka oo uu qabto Miguel. Markuu Jim yimaado, wuxuu qori ku qabtay Miguel isagoo ku qasbaya inuu tuuro hubkiisa.
Mauricio ayaa markaas ku qasbay Miguel inuu toogto Jim, laakiin sida soo baxday Miguel ayaa caqli badan labadooda. Wuxuu awooday inuu khasnada ka saaro ka hor intuusan toogan, taas oo u ogolaanaysa Jim inuu ku boodo Mauricio. Miguel wuxuu doonayaa inuu caawiyo Jim kadib markuu arkay dagaalkooda oo uu soo qabsaday bastoolad, kadibna u jeediyey dhanka Mauricio. Halkii uu ka codsan lahaa naxariista, Mauricio wuxuu ku dhiirigeliyey Miguel inuu toogto Jim. Ma rabo in Miguel uu dilaa noqdo, sidaas darteed si degdeg ah ayuu uga qaadanayaa qoriga oo toogtay Mauricio. Wuxuu siinayaa Mauricio laba ikhtiyaar, inuu ku dhinto gacmihiisa ama naftiisa uu isdilo. Wuxuu qaadanayaa doorashada labaad ee ah inuu isdilo. Iyadoo burcadii ay hadda dhinteen, Jim iyo Miguel waxay sii wateen safarkoodii raadinta ciwaanka. Miguel ayaa garaacay albaabka. Markii laga furay waxaa soo dhoweeyey eedadiis iyo ayeeyadii. Dib ayuu u eegay laakiin Jim wuu tegey. Jim oo daandaansan ayaa fuulay baska oo ku fariistay kursigii rakaabka, isagoo ku dhegan calooshiisii dhaawacnayd. Si aayar ah ayuu indhihiisa isugu qabanayaa oo uu daal dartiis fariisanayaa. Muuqaalkan ayuu ku egyaa. Fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. mahadsanid.